سجايد إنه كمان سلك دولك الله لا با ديك سلك دولك ديك وعالك kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta meel walba ku sugan tihiin soo dhawaada gacmo furna ku soo dhawaada waa walaalkiin Arafat CC FBP athlete videogan waxaan kugu soo gudbin doonaa tartamadii aan ka qayb galnay tartan ka mid ah sanadkan 2022 waana tartanka ka dhacay Sweden aniga iyo walaalkay Xasan Fitzsavage the champion ninka kaliya sanadkan ah dalkan Norway 2022 Xasan Fitzsavage waa qofka kaliya ee ugu dhiirigeliyay inaan ka mid noqdo tartamadan iyo athletekan inaan ku soo biiro waana qofka kaliya iga saaciday waana ninka ugu wanaagsan sanadkan 2022 dalkan aan ku noolnahay ee Norway subax wanaagsan show day ayaa la joogaa min subax tolka maxallada libax لكتل نصيب وعن نصو لها عمل ان شاء الله خير ان شاء الله خير ماشي هذا waxaan imaanay meesha tartanka lagu qabanayo waa soo quraacnay alxamdulillah waan iska soo dhignay kaliya laaba oo soo seexanay sidii baby amal oo soo seexanay haddana waxay noqonaysaa hadii calafkeena cunaynaa intan waxay noqonaysaa ama waxay noqonay inaan yani just guuleysano ama waxay noqonay inaan guul dareysano labadaasna way ku jirtaa hadii mar oo challenge ay galaysid guul darada laakiin waxay noo sii noqonay motivation iyo dhiirigelin aad iyo aad u sii weyn noo sii noqonaysaa haddii aan guuleysanana waxaynu noqonaynaa ayadana motivation iyo farxad iyo rayn iyo wagagac iyo boodbood ay noo noqonaysaa balanteenu waa guul wax oo cudurdaar ah oo sameynayna ma lahan haddii aan guuleysan weyno ana ka qalad xageena waaye haddii aan guuleysanana dal xageena waaye iyo ilaahay xagiisa ka ahaaday let's go marka insha Allah balanteenu waa guul maalin wanaagsan videogan markuu idin soo gaaro waxaan idinka codsanayaa inaad motivation ahaan ka qaadin adinkana aad idinku arko geeskeyga insha Allah mar dhow tartamada meel walba aan idinku arko let's go ahlo bir Nummer 27 Lord. Okej, bra. Nummer 29 Leon. Leon, han är för sent, bra. Bara coachen av Volvo. Hussein bra. 32 bra. Titus. Han är här. Hassan. yes Hassan bra. Och ni andra. Tackar. Lycka till. champ let's go Nu kör halkaas waxaa ku soo idlaaday wareegii koobaad wareegii labaad ayaa loo gudbayaa wareegii koobaad waxaa lagu soo xulaa groupka waxaa laga soo xulaa kaliya 6 qofood wareegii labaadna 6 qofood ayaa lagu kala saaraa kaalinta 6 ilaa kaalinta koobaad sida loo kala galay walaalkeen wuxuu ku guuleystay kaalinta 6 sababtuna waxay ahayd inuu markaas jirkiisa wax yar qoyaan ku jiray ee u dhimanayd inuu aad u sii qalajiyo waqtigaana ku yaray waqti dambe ayuuna diet ka bilaabay asaga dhan 6 isbuuc oo xataa 2 isbuuc kamid ah fasax uu ku maqnaay ayuu isku diyaariyay waana guul fiican kana isu diyaarin ayuu ahay si tartamada kale ee dalka Norway ka dhacayo aan kaalmo fiican uga galno kaalinta uu ka soo galay lixaadna wuxuu ahay dalka Sweden oo banaankaas ayaan ka soo tartameynay anigana kaalinteeda gadaal ayaan ka sheegi doonaa insha Allah
my mind? Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I Nummer 15, Karim. Karim, nummer 15. Ja. Nummer 16, John. Nummer 22. Nummer 22. Nummer 22. Och nummer 23. Adrian. Aba gudbin waa laga gudbay soo marka leema dalbanin dad kale taa la qaatay marka waxay noqonaysaa tartankan isbuuca soo socdo kan iskuul lees oo haysi aan la qabsado oo kan kale tan si fiican u sameeyo waliba markii koobaad oo istaagay aad iyo aad ugu adkeed mar labaadkii ayaa markii la ii wacay oo inaan meesha ku sii sameeyo markaasaan aad iyo aad ula qabsaday meeshan soo hadda experience badan aan ka wataa week kadib moolkiigana wuxuu ahaa ama goolkayga wuxuu ahaa ujeedkayga inaan tartankan u soo aaday week kadib tartanka la qaban doono iyo laba week kadib mid la qaban doono kan waa mid yar oo local ah laakiin dadkii Swedishka u badnaay dad oo class kale laga keenay dhulka waxay ka soo yaraaday ayaana loo wada keen 14 aan ahayn soo booska aan galay haddaan ogaanay insha Allah laakiin se mana xumeyn call out kii labaad aan galay alxamdulillah oo ku faraxsanahay foomkayga qaladaadka ah oo carb popka yani bas inaan wax cuno kale to markaas tartankan natiijadiisu waxay noqotay inaan galay kaalinta 8aad 14 qofna aan ahayn group kale dad laga keen ugu la soo daray almuhiim waxa kaliya iga qaldamana waxay ahayd qaabkan u istaagi lahaa anoo wax yar qalqalay iyo cuntada aan cunay xoogaa jirkayga biyo ka dhigtay dhanka caloosha waliba soo tartamada kaleeto ayaana wixii khibrad aan kala faa'iiday iyo waxyaabi aan ka soo kororsaday iyo cuntooyinka aan bedel lahayba aan la tagi doonaa insha Allah tartankan waa kii noogu koobaad oo ah iskuul lees ayuuna ahay midka Norway ayaan xooga saaray